السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلاتي وعن أول أكسن داودي الميل الدنيا كجوكتان كسر دوادا وركين حبينمو وهبينمو أحد تاريخنا أي كوبي كان تاريخ يتمنى بشة من الله كن لباتن يكوجا قضبضا وركين أو قطور رونا وحاكمدا تقال ذا كسر دلك إثيوبيا جارهان قبل كأحمر هذا يمد كعنفرتا أو صيح وجيسانية قبل كتجريجا أو لجسو شيء يوم معلول أبان يضل الشيء إن يدتكو قدام ما ريان دولا أن يو عنتلا أنبا جبهة حرينتا أورامية أو عمبارين تشو أوجا توري رئيس الوزراء أبي أحمد يو maamulkiisa iyagoo sheegay dadka laga afduubayo ee la leynayo ee ku sugan gobolka Oromia in uu mas'uul ka yahay Abiy Ahmed uu leynayo dadkaasi waxay sheegeen jabhadu in Abiy Ahmed uu dadka ku sameynayo afduub dil qarsoon iyo dhammaan dhacdooyinka xunxun ee ka dhacayo gobolka Oromia oo isagu mas'uul ka yahay iyo qodobo kale oo xasaasi ah ayaa daawadayaal warkeena kaga bogan doontaan balse inteena u guda galin waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanayna haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar like share tan raaci si uu u gaaro saaxiibadana kaleeto waxaad sidoo kale follow naga dhihi kartaan page-kan ku leenahay Facebook-ga mahadsanidin aan ku bilaabay dagaalada ka socda gobolka Axmarada ee dalka Itoobiya iyo midka Canfarta oo si xoogaysanaya waxaa inoo hayaa warkaasi oo faahfaahsan maxamed wacane ku soo dhawow waan ogeyn dagaalo ba'an inay ka socdeen dalka Itoobiya xaaladaha xunxun ay ka jireen maxaa u dambeeyay maanta aad ma santa Cabdullaahi dagaal xoogan oo ka socday dalka Ethiopia ayaad moodaa in ay halkoodii ka sii socdaan ayadoo la arkay in labada dhinacba ay isku hub arursanayaan oo meelaha dagaalada ay ka socdaan sida gobolka Canfarta oo kale laga dareemayay guuxa diyaaradaha iyo sidoo kale madaafiicda labada dhinac ay kala adeegsanayaan gobolka Axmarada asagana dagaal xoogan ayaa ka socdo 24 saac u dambeeyay ayadoo la arkay magaalada Gondar iyo Desai oo madaafiicdu ay hoobanayso deegaanada halkaasi ka agdhow Cabdullaahi dagaaladan waxa garab socdo dadaalo lagu doonayo in lagu joojiyo dagaalada ka socdo labadan gobol oo moodo in ay dadkii u dhamaanayaan macaluul iyo sidoo kale to gaajo ka imaatay cabsida laga qabo dagaalada ayadoo aysan gaari karin gawaarida degdega gargaarka degdega iyo sidoo kale raashimada aysan halkaasi gali karin labadan gobol ayaa la sheegayaa in saddexdii bilood ee u dambeysay oo ahayd inta badan xilligii dalagyadu ay soo bii jireen ay halkaasi aysan jirin wax dalaga oo si toos ah uga soo qaay beerihii halka ku yaalay beeraha qaarna waxa la sheegay inay noqdeen goobo la isku dagaalo oo sidoo kale to labada dhinac ay u noqdaan hooygii ama meelihii ay ka qaadiyeen abaabulka ay ku qaadayaan ama dagaalka ay ku qaadayaan dhinaca kale ka soo horjeedo dagaalada ayaad moodaa in labada dhinac ay wali isor fadhiyaan marba marka dambeysana dagaalo kala duwan ay ka dhacayaan hadda dagaalkii ugu dambeeyay ee maanta dhaco wuxuu ka dhacay magaalada Gondar agaarkeeda iyo sidoo kale magaalada la yiraahdo iyadana Dabra Tabu iyo sidoo kale magaalada Desai agagaarkeeda oo iyadu magaaladaasi go'doonsanayd magaalada Maxamedow go'doon ayay ku jirtay magaalada leedahay Desai waxa hareereynayay xogaga TDF oo shalay ilaa iyo dara dagaalo waaweyn ayaa ka socday maanta gacan haynteeda ayaa iskale dagaalada Cabdullaahi halkaasi ka socdo magaalada waxaad moodaa in aan wali lagu kala bixin labada dhinac balse la isku hor fadhiyo oo xooga TDF ay hareereeyeen magaaladaasi mana rabaan xooga TDF in ay ayagu marnaba magaaladaasi ay gacantooda ka maqnaato halka ururka xoogan dawladda iyo sidoo kale to kuwan Axmarada ayaguna ay ku harbinayaan magaaladaasi inay marnaba ayaguna gacantooda ka bixin oo xoogan TDF ay halkaasi ka ilaalinayaan dhanka kale Maxamedow saddexda gobol ee dagaaladu ay ka socdaan maadaama gobollo badan ay dagaal ka socdaan laakiin saddexda gobol ee ugu daran sida gobolka Tigray Canfar iyo Axmara ayaa laga soo sheegayaa macaluul baan dawladdu wax ma gaarsiisay maxayse tahay dhimashadan faraha badan ee dadku ay u dhamaanayaan daawo la'aan iyo cunto la'aan bay u dhamaanayaan ila sheeg ayadoo ay jirto dagaalo xoogan oo ku dhaxmarayo kuwa dawladda iyo TDF gobolka Axmarada iyo Canfarta iyo Tigray oo asaguna dagaalo xoogan halkaasi ay ka dhaceen oo muddo maalmahan inaysan dagaalo ka jirin ayay dagaaladaasi waxay koos gareeyeen in ay wax gargaara aysan gaadhin saddexdan gobol ayadoo aan hore kugu sheegayba in dagaaladii inay sababeen dalagii soo go'ayay in aysan ka faa'iideysanin dadka halkaasi sugaya beeraha inay ka goostaan miraha ay ku abuurteen waxaa la sheegay Cabdullaahi ergiga arrimaha degdega iyo musiibooyinka ee dalka UK ayaa sheegay in gobolka Tigray iyo Canfarta iyo sidoo kale Axmarada ay ka jirto macaluul aad u baahsan ayadoo siiba ay kala daran yihiin gobolka Tigray aysan ka jirin wax shidaala oo sidoo kale baabuurta lagu shubto isbitaaladii ay dawladda yihiin aysan jirin wax raashina iyo ama wax dadka yani qutul daruurigii wixii la cuni lahaaba aysan halkaasi gabi ahaanba ka jirin sidoo kale gobolka Axmaradana asagana sidoo kale to waxa ka jirto mid taalamida walow ay wali dawladii gacanta ku hayso intiisa badan gobolkaas asagana Canfartana sidoo kale to dawladda ayaa inta badan gacanta ku hayso meelaha qaar waxba la gaarsiin karaa laakiin ma jirto dawlad si rasmi ah wax u gaarsiin karto ama dadkaasi
baahidooda dabooli karto iyadoo aan ogeyn dadkani intooda badan inay ku tirsanaayeen beeraha iyo sidoo kaleeto waxyaabaha yaryarka iyagu ay gacantooda kusoo dhacsadaan Cabdullahi laakiin gobolka Tigreega macluultan laga soo sheegayo iyo dhimashadan daawo la'aantan iyo dhibaatadan faraha badan ee laga soo sheegayo haddana wixii la gaarsiiyo oo ama baabuur ama maaragtay adeega degdega oo la gaarsiiyo nolosha lagu dabari lahaa haddana ururku sidii la rabay mas'uuliyadda oogama soo baxayaan oo gawaaridii way qafaalanayaan geed waxa la dhahay ku samaynayaan oo macnaha darwaladii meelay aadeen ilaa hadda lama hayo sidee wax lagu gaarsiin karaa mar haddii gawaaridii iyo darwaladii iyo wixii loo geeyay aysan xafidaynin maxamedow Cabdullahi horta ma jirto hay'ad caalami ah oo arrintani ayada dusha saaran karto oo wax gaarsiin karto kama jirto dalka Ethiopia ayadoo aanay goyn hay'adihii caalamiga ah kuwii dawooyinka bixinayay kuwii raashimada kuwii yani dhinac walbaba in dalka laga ceyriyay oo aysan jirin hay'ad si rasmi ah wax u gaarsiin karto goboladani macluusha ay ka jirto haddana Cabdullahi way jirtaa sheegashadan la sheegayo in xooga TDF wixii ay gaarsiiyaanba ay dhinaca ciidamada ay ku difaaciyaan ama ay ayagu halkaasi u weecinayaan balse ma jirto Cabdullahi dhinaca hataa dawladda laftirkeeda mas'uuliyadaasi kama soo bixi karto oo wax ma gaarsiin karto xoogan TDF marka labada dhinacba way leeyihiin mas'uuliyadaasi dawladda Ethiopia ayada mas'uulka ah dadkan Tigreega xataa haddii ay dagaal ka jiraan wali ayaga ayuu Tigreeg hoos maadaa inay wax gaarsiiyaan way ku qasban yihiin balse Cabdullahi dawladda laftirkeeda waxaad moodaa in dagaalka ay kula jirto xoogan TDF ay saamaysay ama ay ka seexatay dadka maatida ee ku dhaqan gobolka Tigreega oo aan ognahay in ay intooda badan ay u dhamaanayaan gaajo iyo daawo la'aan saddexdan gobol ee la sheegay leeyahay macluul bay hadda macluusha laga soo sheegayo Tigreega garanaya gobolka Axmaarada dagaalo ayaa ka socday muddo hal sano ay dagaaladan qaateen way dhici kartaa arrimaha laga soo sheegaya bini'aadam xumada ka jirta halkaasi kan caanfarta maxaa ku dhacay maxaase soo maamulku ma sii dhisnayn oo waxa weeye dawladdu ma sii shaqaynaynin dagaaladu hadda bay ka bilowdeen maxaa dhibaatada laga soo sheegay turba gobolka caanfarta Cabdullahi dagaalo ayuu kula jiray in ka badan sanadaba gobolka dawlad deegaanka Soomaalida oo dhaqaale badan uga imaan jiray dhinacaasi waxaad moodaa in ay lumiyeen dhaqaalihii ka soo galiyay gobolka Soomaalida dawlad deegaanka Soomaalida kan Axmaaradana ma jirto wax toos ah oo uga imaan karo halkaasi iyadoo aan ognahay sidoo kale dawladda Djibouti laftirkeeda in ay iyaguna halkaasi dariir kala dhaxayso marka kan caanfarta wuxuu ka gubanayaa saddex dhinac ayadoo ay jirto laftirkeeda maamul xumo iyo mas'uuliyad darro halkaasi haraysay oo aad moodo mas'uuliyiinta dawlad deegaanka caanfarta in si rasmi ah aysan u controlin ama ay wax u gaarsiinaynin dadkooda dawlad deegaanka caanfarta ugu dambeyntii xoreynta jabhadda xoreynta Oromia ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay dhimashada iyo dilka ka dhacaya gobolka Oromia in uu ka dambeeyo Abiy Ahmed maxaa ka jira warkaasi xoogan xoreynta Oromia oo dagaal ka waday maalmihii ugu dambeeyay sidoo kale bilihii ugu dambeeyay gobolka Oromia ayaa cambaareen dusha uga tuuray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo sheegay in uu mas'uuliyad darro uu ka wado gobolka Oromada xoogagan waxay ku sheegeen in ninkan ama ra'iisul wasaaraha dawladda Ethiopia uu isku dirayo dadka Oromada asoo aan ogeyn inuu booqday gobolka Oromada ayaan dhaweyto oo uu halkaasi la kulmay mas'uuliyiintii sidoo kale odayaasha dawlad deegaanka Oromada oo uu kala hadlayay xoogan Oromia xoreynta Oromia ee dagaalka ka wada halkaasi in laga hortago oo lala dagaalo oo la iska dhiciyo xoogani waxay halkaasi ka soo wadaan wax kuman maaha marka arrintani waa arrin hadda soo kordhay oo cusub waana arrin hadda bulshada dhexdeeda ku cusub oo la isweydiinayo waxa mas'uuliyad darrada iyo gumaadka ku wada ma ayaga mise waa Abiy Ahmed ma jirto dawladda hadda waxa ay dhaliilo weyn oo halkaasi ay ka wado iyadoo aan weyn in Abiy Ahmed uu halkaasi dhaqdhaqaaqyo uu ka bilaabay iyo inuu la dagaalamo xoogan marka arrintani waxay keenaysaa cabaadka iyo sidoo kale culayska la saaray maalmahan ayay daba imaanaysaa oo arrintan waa qaylo ay ka dambaysaa aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Maxamed Wacane oo inaga warbixinaya xaaladaha dalka Itoobiya daawada idin kana waad mahadsantihiin warka xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tagaynaa guul iyo gobonimo